warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ay maantay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya kaasi oo lagu beegsaday ururka Al-Shabaab. ciidamada huwanta ah ayaa ka hortagay weerar ay Al-Shabaab ku doonayeen inay ku soo qaadaan degmada Caleer ee gobolka Galgaduud waxa ayna soo afjareen kooxdii loo soo diyaariyay weerarkaasi waa sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. guutada 24aad ee Khalid bin Waliid iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal kooban kadib soo afjaray Al-Shabaabkii doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan degmada Caleer ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka xoogga dalka. qoraalkan ayaa waxa lagu cadeeyay inay ciidamadu hayeen xogta weerarka kadibna ay sameeyeen ka hortagid isla markaana howlgalku uu ka dhacay duuleedka degmadaasi. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirarka ee deegaanka oo helay xogta dhagarta Al-Shabaab oo doonaya inay weerar arbushaad ah ku soo qaadaan degmada Caleer ayaa looga hortagay nawaaxiga haanta cagadheer ayaa mar kale lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay ciidanka. dhinaca kale taliyaha guutada 24aad ee Khalid bin Waliid gaashaanle Maxamed Dhagaweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay sameeyeen ee ka dhacay gobolkaasi Galgaduud. Maxamed Dhagaweyne ayaa sheegay in howlgalka ay iska kaashadeen iyaga iyo ciidamada deegaanka oo ay jab culus gaarsiiyeen Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday waa sida uu hadalkiisa ku sheegay. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen dowladda Soomaaliya. maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanku waxay guluf ka dhan ah Al-Shabaab ka wadeen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo looga xoreynayo deegaano ay dhowr sano maamulayeen ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna sidaasi oo kale waxay soo qaadayaan weeraro ay ku qaadiyaan deegaanadii laga saaray gacantooda.